maalmahan waxa aad u aragnay inay gabdhaha aad u isticmaalayaan selenium husk, Epsom salt and Himalayan salt. Haddaba maanta arrimahaas ka hadli doonaa maxaa ka saxa maxaana ka qalada. Waxaan ka hadli doonaa waxay tahay in saddexdaas shay waayadan la isku daray hal aan kala qaadi doonaa. Selenium huskiga fiber way aad ayuu u fiican yahay qofka markuu qaadanayo. Waxay ka caawin doontaa in calooshaada adeega ama saxarada kugu dhagan ama constipation haduu jiro inay ka caawiso. Waxay ku sii doontaa dharag marka ku jirtid miisaan dhimista waxyaabaha soo inay sokorta yareeso in cholesterolka ay yareeso. Fiber way hawsha fiberku oo qabto oo ah inay ku dharjisan way qabanaysaa. Hawlaha laga rabay fiberka heesa faa'iidooyinkaas leedahay. Haddii ayada naftirkeeda iska badisid waxay keeni doontaa ama sida saxda ah aadan u qaadan ama biyo fiican aadan la qaadan waxay keeni doontaa in constipation uu ku imaado calooshaadi ay dhigto. Fiberka waxa ku daaweynaa in constipationka uu bixiyo laakiin haddaadan sida saxda ah u qaadan ama iska badisid ama biyaha ku yareysid waxay noqon doontaa in uu asaga constipation ama calool fadhiga uu ku keeno. Tan labaad ka hadli doono waxay tahay Himalayan pink salt midaan loo yaqaan. Cusbadan Himalayan saltiga loo yaqaan waa cusbo minerals yar leedahay laakiin waxyaabo gooni ah oo ah in ay gubeyso maxaa la dhahay baruur inay gubeyso ama calool inay dhimayso midna malahan waxay ku keenayaan waxa waaye fuuqbax waa in biyaha inay awal jirka ku celiyaan tani xaajana waxa waaye in ay ku keenayaan fuuqbax wax loo yaqaan in biyaha jirkaaga ay ka bixinayaan marka adiga waxa dareemaysa in miisaankaaga uu dagay waxa dagay tolo madufankiya ama baruurta dacwada ka eedo meelaha qaldaneeda meelaha aadan u baahnayn ku jirtaya mase waa biyaha jirkaaga ku jiro ah ina fuuqbaxisid taasna waa taas oo ah diraasooyinkan hadda korkaaga muuqdo dhan waxay sheegayaan in wax la hubo oo ah Himalayan salt in baruur ay gubto ama miisaan ay dhinto inaysan jirin tan xigta waxay tahay Epsom saltigan aslan waxa loo isticmaalaa cusbadan in constipationka lagu daaweeyo marka qaadanaysid maxaa dareemaysaa marka hadii constipated ah ama calooshaada ay fadhisay in calooshaada ay dhaqaaqdo in saxarada kugu dhaganeeday waxa soo dhan inay ka baxaan taasoo dhan waxay ka caawin doontaa hadii calooshaada lacal ay soo baraneedo waxa ka adag ama ay dibirsaneed wax adka ay ahaayeen saxara inay ahaayeen haday ka baxaan oo ka nafisatay waxay noqonaysaa inaad dareentid in isbedel uu kugu imaado laakiin tolo isbedelkaas adag kugu imaado hadeerta madufana mise constipated aheedo hadeertaan relief aan noqotay oo wixii ka baxay diraasadan korka muuqatan waxay sheegaysaa in aysan jirin in Epsom saltigan inta la qaato inaysan jirin inay baruur gubeyso midna inaysan jirin marka hadaba saddexdood marka isku darsatay hal shay oo faa'iido laha haysata oo selenium huskiga ah laakiin labadan kale to wax faa'iido gooni ah ee ku hayaan oo ah ama inay dufan ka ridayaan ama inay baruur gooni u gubayaan oo wax cilmiyeysan oo sheegayo daliil cilmiyeysan oo loo hayahay ma jirto hadaba fiidiyogan waxa la wadaagtaan dadka wada isticmaalayay gabdhaha wada isticmaalayay waxaan kula talin hada u baahan tahay inay miisaankaaga dhintid in wadada saxda ah u martid adoon kiliyahaaga dhibin adoon isfuuq bixinin adoon wajigaaga kalarkiisa ama iftiinkiisa aanan tirin qofku markuu fuuq baxsan yahay waxay noqonaysaa in wajigiisa uu dumaayo oo iftiinkii ama dhalaalkii wixii idil meesha ka baxaan fuuq baxan wajigaaga kaliya kama soo muuqanayo unugyadaada jirka gudaha ku jira waxay noqonayaan in ay fuuq baxaan taasna ma ahan wax ku haboon inaad dhahdid inuu miisaankaaga dhim miisaanka marka kortid waa dareemaysaa inay